Ma jeceshahay inaad samaysato Facebook page mase ku wareertay sidii aad u samaysan lahayd? Haddaba maanta waxaan ku wadaa sidii aad u samaysan lahayd Facebook page. Si aad u samaysato Facebook page waxaad tagaysaa saddexda ulood ama saddexda dhibcood, kadibna hoos baad u tagaysaa ama aad u wadaysaa si ilaa aad ka gaarto meesha ay ku qoran tahay pages. sadarkiisa waa halkaa idin calaamadiyey. Kadibna waxaa kuu soo bixi doona pageskii aad like u saartay iyo kuwa lagugu yeeray inaad like saarto. waxaad taaban doontaa si aad u samaysato page. waxaad taabanaysaa qaybta ay ku qoran tahay plus iyo create. kadibna sidan ayaa kuu soo baxaysaa. kadibna waxaad leedahay get started. kadibna halkan keliya ayaa lagu leeyahay magaca pagekaaga. tusaale ahaan aniga magac ayaan gelinayaa tusaale. kadibna waxaa lagu leeyahay dooro waxa uu khuseeya ama waxaa lagu ogol yahay inaad dooratid 3 qaybood oo kala nuuc ah. tusaale ahaan sida caafimaadka, fanka iyo wixii la mid ah. sidaasoo kale waxaad jeceshahay ayaad halkan ka baaranaysaa si profileka pagekaaga ay beri ugu soo muuqdaan ama dadka waxyaabahaasi xiiseeya lagugu soo xiro. waa arkaysaan qaybahan oo dhan ayaad saaran doontaa. aniga tusaale ahaan 3 ka mid ayaan iska saaray. kadibna waxaad leedahay create. okay, saad arkaysaan pagekii waa aan samaynay, laakiin waxaanu dhimanay inaan xogaa macluumaad ay gelino si pageka uu noqdo page professional ah. ugu horeyn waxaa lagu leeyahay keliya qaybahan aan idiin wada calaamadiyey waa qaybo la wada buuxin doono. sidaa daraaddeed marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa tilmaamka pagekaaga. tusaale ahaan halkan waxaa lagu leeyahay geli website. halkan waxaa lagu leeyahay geli emailkaaga. halkan waxaa lagu leeyahay geli lambar telefoonkaaga. qaybtan hoose waxaa lagu leeyahay geli adresskaaga. lambarkii ayaan xogaa yara saxayaa si lambar caadi ah uu noqdo. tusaale ahaan waxaan gelinayaa furaha Soomaaliya. waa lambar iska qiyaas ah, lambar si uu u qaato. saad arkaysaan waa uu aqbalay. okay, qaybta hoose ee adresskana waxaad gelinaysaa locationka ama halka aad adiga aad joogtid ama uu pagekaagu saldhigiisu yahay. tusaale ahaan Soomaaliya ayaan geliyay Muqdisho. halkan waxaa lagu leeyahay geli koodka CVC. waa aan geliyey. waxaad geli kartaa furaha Soomaaliya. halkan waxaa lagu leeyahay kala doora saacadaha aad shaqaynaysid. halkaad doontaa ayaad saaran kartaa 24 saac inuu furan yahayna waad ka dhigin kartaa. kadibna waxaad leedahay next. okay, saad arkaysaanba pagekii waa u furmay. waxaana soo baxay profilekii. labadan qaybood ayaa waxaa lagu leeyahay saar sawirkii iyo sawirkii profileka iyo sawirkii coverka ah ama dambeeyey. kadibna waxaad leedahay next. kadibna halkan waxaa lagu leeyahay haddii aad haysato WhatsApp number halkan geli. haddii aad doonayso waad gashan kartaa. haddaad doonaysidna waa aad ka gudbi kartaa. waxaad dhigi kartaa escape. okay, anigu waxaan leeyahay escape. kadibna halkan waxaa lagu leeyahay asxaabtaada u yar oo invite friends si ay pagekaaga kusoo xirmaan. kadibna sidan ayaa kuu soo baxayso. badhankaasi waad shaqaysiinaysaa. kadibna waxaad leedahay done. saad arkaysaanba profilekii hadda waa uu isrogayaa oo waxaan u wareegayaa pagekii dhexdiisa. pagekii dhexdiisii ayaan si toos ah ugu maamuli doonaa. oo bajekan cusub sanadka 2022 bilowday waa noocan. halkan waxaan leeyahay started. kadibna wuxuu ku leeyahay qaababka ugu fudud ee aad pagekaaga u horumari kartid waa sidan iyo waa sidan waa tilmaamo. kadibna waxaan leeyahay next. next ayaan sii leeyahay. waxaa lagu sheegayaa qaababka ugu habboon ee aad pagekaaga ula tacaamuli kartid. saad arkaysaanba qaybtan waxaa lagu leeyahay pagekaaga waa okay, waana diyaar.
وحير أو تلابوجين يا كوديم بوستك وريكلي أصحاب تادو يير إيو كحر واتساب كا واختياري أو ماهن قصب مقع صدر كيسان بوكاسا بيشكي معلومات كي انكلي ينواد أركيسان سيداس أيو بيشكي ديارك وياهي أبوتنا دانتابتو صدر كيسان باللمبر كي انكلي يواد أركيسان تصالي مقدشو تصالي .com إيو وحكاستا مقعنا إن تصالي وياهي واد أركيسان سيداس أيو بيشكي كودا ميشترين يحي وحان رجعينا يا إناد كهش الموقال كان haddii aad ka heshay like de share saad ujeedaan ba hadda waxaan isku dayayaa inaan geliyo boostiga ugu horreeya assalaamu calaykum habeen wanaagsan sidaas ayuu ku galayaa boostiga saad arkaysaan waxaan leeyahay next kadibna waxaan leeyahay post now haddaad doontidna dib waad u dhigi kartaa wax xilliya ama saacado kale waad ku xiran kartaa sidaas ayuu ku galay waad arkaysaan just now intaas ayuu ku dhan yahay muuqaalkeena maanta